ninkii baysa u baahnayn waa every single problem ka soo dhaca rakadu ka saaray orod ku dheer ragga wakaas reerkiisii u dhaqan waaye kumanaan kun nimana ka hor imaanaya xooran horar been ba sheegaysaaye dadkii kala naagtayda waa leeyahay sababta waa culture-ka lagu soo kori waa dhaqankii weeye waa jaamacaddu ka soo baxay sababta jaamacaddu ka soo baxay waxaa la yidhahdaa hyper kacsanaan mar walba inuu kacsan yahay isagu khalad male marka iyaduna jaamacadda ka soo baxday maxay tahay maxay ka soo baxday ADS jaamacadda dansan haweenku hadday hadlaan caado xun bay la yimaadeen way hadleen ma dhici karayso waa haween weyn afkeeda haysataa jaamacaddeedii bay khaldaysaa haddii kale jaamacadda ka soo baxday bay khaldaysaa yaysan never saa darteed baa meelaha la idinku meerinaya xataa ma tagtaan waa lagu meeriye unbaad maqashan cidda ku meherisay ma taqaanin xataa shiikha ku meheriyey inuu mas-uuliyaddaada qaadi kara xataa ma ogid xataa kan lagugu meheriyey meeshii lagugu meheriyey wuxuu ka yimi haddii la weydiiyo midkiinaba sheegi karayso which one ii sheegi karaysa meeshii lagu meheriyey waxa laga yidhi soo qabsan karaysa which one ta soo qabsata oran karaysa markhaati baan ka ahay meeshii lagu meheriyey waa joogay oo reerkayga aan qaybta ka ahay kontonka ka ahay isaguna kontonka ka yahay isku meel bay ka dhacaan heshiiskaygii qaadinimo wadi ku jirtaa maya wadi ku jirtaa mid tiri reerkan anigaa dhisanaya walaalkayna la dhisanaya meesha la igu meheranaya waan goob joogka waxa la igu meheranaya waan ogaadaa wixii ninkaygu yidhahdana waa inaan ka warqabaa muxuu hoos u yiri muxuu kor u yiri mid ku jirtaa ma haysataa aniga horta maya qaadista waxa uu rabaa inaad barataan sababta jaamacaddaad ka baxdeen laydinka saaray looguma talagelin inay hadasho looguma talagelin inay ka qayb qaadato saa darteed ba mar allaala markaas dhibaatada ugu weyn inay haysato guryihiina taala waan ogaa cidna ii sheegi maysa anugu cilmiga anigaa barta the biggest problem guryihiina yaala waxa weeye communication inaad ninkaagii talada la qaybsatid no communicate inaad ninkaagii la hadashaad ku tiraahdo saa iyo saasaan yeelina saas yeelina asna uu kaa qaadaa good pointiga ku jira waaba kaaba wallah mar walba waa inuu isagu hadlaa adiguna aad aamusanta ama mar walba waa inuu hadalkaaga dhegaystaa ka bacdina isaguna go-aan kale la yimaadaa kaagina aan la tixgelin sababta waa jaamacaddaa laga baxay waana waxa inagoo dhan qoyskeenu u yahay midka madluumka ah ee aan faa'iidada lahayn ee lagu dhoodhoobayo waxaan laisu dhoodhoobaya soma arag dhoodhoobka hashaan laisu dhoodhoobayo waa qoys xaqiiqiinaba ma jira markaa saa darteed ba waxaad kala tihiin dhammaantiin waxaad kala tihiin mid dulmigii qarsanaysa ku nool oo shib ah laakiin la dhibaataysan meel uga baxdan aan garanayn option kale aan lahayn iyo mid markuu dulmigii xajin weyday qaraxday bug midda qaraxday waa midda bulshada dhex timaada laga maqal heblaayo waa la furay midda kalena waa middaas jiiqda ku jirto aan hadli karayn so maxaad haysataan marka mar allaala markaad 45 sano gaartaan maxaad haysataan osteoporosis dhammaantiin lafihii baa idin dhaawacmay neerfayaashii baa idin istaagay dhuuxii baa idin shumay timihii baa idin daatay muuqaal kale aad leedihiin waad gurguuranaysaan ma kici karaysaan salaada fadhigaad ku tukanaysaan jirkiinni muuqaalkiinni waa lumay soddon jir annagoo abu dhiiggi naga wada guura habeen dhexdaasood ku jirto ka sheekeynta waxyaabaha dhiiggu ku tago iyo waxyaabaha qofku cuni karo gabadho 40 markay gaadho fursadaha yacni ay samayn karto shaahyada lasoo iibsanayo markaasaan wallaahi waxa weeye waa run waxa uu sheegayo dhan way haysataa gabadh Soomaaliyeed ama ha yaraato ama ha weynaato bointigaas una wada haystaa waa ninka make up ka sameey waa inaad u ducaysaan isagoo waliba jirkiina dhibaato u geystay haddana waa inaad u ducaysaa sababta ceeb badan buu idin qariyaa waa aad u weyn waa inaad ilaahay u baridaan ku tiraahdo ilaahow wax wanaagsan oo dabiici ah oon dembi nagu ahayn noogu soo dhiib markaan
انت عيه waxaad tiraahdaa ilaahow wax wanaagsan oo dabiici ah oo aan kiimika ahayn oo jirkayga u wanaagsan ilaahu noogu soo dhiib ilaahu cilmaha noogu soo dhiib saa ugu may duceey doctor dawooyinkaagaan cunanaa dawooyinkaagaan cunaa imkaba waanu ka raysanay wax badan maqaarkii baa noo fiicnaaday alxamdulilah habeen dhaweed waxaan dhegeysanayay xabxabkii iyo liindhanaantii weliba labadaa weli ma samaynin laakiin intii kalaaban maasha allah ayaan ku caafimaadayba lugaha ay xanuuni jiray dhabarka ay xanuuni jiray waxba ma qabsan kari jirin alxamdulilah ba waxaan ku caafimaadayba wallaahi intii kale soo marka waxaan rabaa inaan tilmaamo marka maadaama su-aasha ina weydiisay aad baan caawa su-aasha ay weydiisay ugu dheeraaday waxaan rabaa marka su-aasha ay weydiisay marka haweeneydii markay tahay ADHS ama markay noqonayso ADS waxay kala yihiin ADS oo hada maqan haweenku inta ugu faraha badan hyper ma ah haweenku hyper ma ah there is no haweeney hyper ah haweenku waxa weeye waa ADS so haweeney baa jirta marka ADS nimadeeda uu isu bedelayo ADHS hyper noqonaysa oo kuwan hadda irta social media ku aragtaan miigagas ku qaataa laakiin see ku noqdeen gabdhahaas oo ADHS see hyper ku soo galeen see hyper ku soo galeen baan kuu sheegayaa marka haweenkan waxay hyper ku soo galayaan waxa ugu horreeya hyperka soo gelinaya waxay tahay mar kasta oo nolosha iska caabinteedu u horseedo isdifaac xagee ka imaanaysaa markaa haweenkaanu waa haweenka iyagoo 20 sano jira hormone imbalance noqday 20 years old ayadoo maraysa bay waxay noqotay hormone imbalance estrogenkeedii waa kor u kacday progesteronkeedii waa lumay weyn nimowday marka oo testosteronkeedii waa kor u soo kacay waa kan hyperka markaas ku jirtaa maxay noqonaysaa haweeneyda markaa waxa ugu horeeya haweeneydaas noqonaysa waxa ugu horeeya ay noqonaysa waxa weeye PCOS waxay noqonaysaa insulin resistance waxay la soo baxaysaa gar yara shaaro dhibci yararka madmadowgaha nidaamka fuulaya soddon iyada gaarinin ayay stageka garoobnimo isu diyaarinaysaa soddon hadda ma gaarin wasta doylaad waxay noqotay marka hyper haweeneyda marka maxaa lagu yaqaanaa way fududahay go'aan caadin u aragta si caadi oo qata normal bay aragta sababta waa nin madax haddaad aragtay haweeney madax qaawan waxay testosterone bay haysataa haddaad aragtay haweeney madaxeedu qaawan yahay sii daynaysa madaxeeda ayaxyaxayn waa high testosterone markastoo ay high testosterone tahay waa markastoo aysan ku feejignaan karaynin war haweeney baa tahay dareen waayo madaxa u qaawanaysaa way nimowde nin bay isu aragtaas daas waa bay raggu madax qaawan yihiin dee so ninna bay isu aragtaa marka saa darteed bay loo xisaabtamiyey cawradeedii waa hyper maxaa dad idinku hortiina marmaraya oad u qabtaan caafimaad qabaan laakiin ina cilmi u lahayn ana saa ula socotaa walaal marba haddaad aragtid haweeney cawradeeda bannaanka dhigaysa waa high testosterone definitive si kale jirkeeda ugama dhici kara abuurka ilaah ka mid maaha saa darteed nin ahaan bay isu aragtaa way ninnimo dareentay haweeneydaas konton nin hadday maanta o dhan taabanayaan wax dareena ma helayso war iga fuqa xataa oran mayso hadday maanta o dhan salaaxayaan taabanayaan garabka haystaan naasaha ku dhegayaan qabanayaan kor u qaadayaan ilaah bay ka tahay waa nin caadiya
هاي تستوستيرون بهسته انت ugu faraha badan rag la buuqaan rag la doodaan waliba haweenka inta ugu faraha badan ragga dhibaateeya saaid u kulleeya laakiin haweenka kale markaysan high testosterone ahayn ragga way la hadlaan laakiin lama doodaan ninku markuu qaylo iyo buuq keeno way ka aamusayaan wax faa'iideynaya ma leh haweenku ma ilaahay kuma talgal maaha abuurka ilaahay haweenaydu inay doodo haweenaydu waa inay wax sheegtaa faa'iido leh haweenaydu waa inay ka hadashaa dhib waa inay tirahdaa dhibkaasaan arkaa hala xalliyo laakiin dood maala yacni waxa maaha waa markaa tahay nimowday so maxaa rabaa marka maxaa imaanaya marka waa maxay wax imaanaya kow waxa ugu horeysa haysata maxay tahay mar kasta oo hormoonkaaga progesterone uu dhulka aado waa mar kasto adiga makaankaaga loo dhacay oo gurigaagii la jabsaday so maxaa kugu bilaamaya markaa waxa kugu bilaamaya waxa kow ugu horeeya kugu bilaamaya waxa weeye caado wareerka waxaa ka horeeya waxa la u taqaanay ninku dhabar furanka dhiig aadan joojin karayn kaasoo ka imaanaya markaa muruq loo yaqaano mitriose hadhowna markii qolyahan lacagta ka sameeyay u bedeleen endometriose ilaa makaanka dhan laydinkaga tuuro qaybtiin makaanka dhan baa laydinkaga tuura wanoge iyagoo awoodi karaya inay idinku dhahaan si tartiib ah hormoonkaagii progesterone ayaa hooseeya kor u soo qaad lacag ba ka raadishay inay makaanka dhan kaa xayuubiyaan ama inay 20 sano kugu daawanayaan dhiiggaaga fatahmaya oo low iron u noqotay dad mirid baa hara marka haweenaydii inay fahanto marka soo aad yahay is noqonayso walaal waa markasta marka kor u kacaysa marka qaadashada carbohydrate-kaagu gaajadaada fara badan waxa fara badan cunistaada shaah cabkaaga sonkortaada mana joojin karaysa so haddaad aragtid marka mayomku wuxuu ku yimaadaa markii makaankaagu kulaado jirkuna wuxuu soo diray marka hormoon makaankaagii biyeeya burooyinkan yararka waa difaac waa makaankaagii loo qaboojinaya waa cooling system dhakhaatiirtu maxay nagu sameeyaan waa idinka qalaan markaasaa jirkaagu ahaantii makaankaaga qaboojinaysa oo la jaray ayuu haddana meel kale ka soo saaraya ilaa waa system loo jirku ugu talagalay inuu isku qaboojiyo markaasuu haddana wuu sii sheegaya dhakhtarkaaga wuxuu ku leeyahay haddaan kaa jaro way kaa soo baxaysaa mar kale wuu og yahay inuu jirku isqaboojinayo khaasatan makaankaagu so endometriose muxuu noqonayaa waa muxuu noqonaya waa muruqa dhismaha makaankaaga oo muruqaas muxuu quutaa waxaa la leeyahay hormoonka progesterone ma la waayey muruqaasuna wuu bannaynayaa meeshii markastoo meeshii la banneeyana dhiigga caadi cid celinaysaa ma jirto wuu fatahan yahay so oestrogenkaaga maxay noqonaysaa cirkaasi aadaysa oo maxay moodaysaa mar walba makaankaaga inaan la dhaqin saa darteed bay fatahmaysaa laakiin progesterone-kaaga kor ma aadi muruqiina wuu soo laabanaya muruqi ma soo laabtay caadi dhiigoo la joojinaya stop intii loogu talagalay markii la fasaxo maxaa dhibaato idinku socota dhaqaalaha idinka samaynaya
just labada hormoon ilaa sigooda wuxuu kaaga baahan yahay aqoon waa inaad barataa haddii kale haddaad labada hormoon aqoonin isu toosiyey qurux badan oo barbaara si qurux badan iyo anigu waagii hore sidai kuwa kale yihiin haddaan ka hadlayaan ahaa anigu waagii hore 7 sano ka hor haweenku inay hadlaan xaq leeyihiin ju qoran karaan maba aaminsanayn haweenayda hadalkeeda maqlo waa dhibsan jiray laakiin markii aan cilmigii bartay noloshii fahmay isbedelay ayaan ogaaday liibaantii khayrku meesha ku jiro iyo weliba qur-aanka kariimka ah markaan si fiican u bartay weliba markaan cilmiga markaan marka hore qur-aanka kariimka waa aqaanay tafsiirka iyo wax walba xadiista rasuulka wax walba waa aqaanay waxaas macallin baan kusoo ahaa laakiin markaan cilmiga bartay abuurka ilaahay markaan bartay ayaa kitaabka qur-aanka wax kale ii noqday bilow ii noqday waxaan weligay horey u arag saa darteed allah idin barkeeyo ugu hambalyeyn lahaa wiilasha Soomaaliyeed saas isu bedelaan oo ay cilmiga ka war doonaan kabacdina ay arkaan nolosha saxda ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baan uga baryanaa in ilaahay saa nooga wada dhiga yaryarka yar soo kacaya hadda adigana jazakallah khayr mawduuc si fiican baad u faahfaahisee khayr allah ku siiyo thank you ma santa walaal allah ku barkeeyo assalaamu calaykum haye waan iska sii tegahay assalaamu calaykum dhamaanteen so walaalkayow adhahays waan ogahay inaad wada tihiin haddana waa idin caawiya sababta idin caawinayana waxa weeye adhahaysnimada waa laga bixi karaa haddii caafimaadkii farax lagu hayo haddii caafimaadkii lagu guulaysto adhahaysnimada laga bixi karaya caawa waxaad wada dareenteen dhammaantiin dulmanayaal sax waxaad tirahdeen kii doctorism annagu caawa wun habaaraya idama habaarayo waa xaaladiina aad ku nooshiin dabeecadihiinana waa kuwa waa qaabka u nooshiin qisa yar baan idiin sheegaya marka saad yara dhegeysataan shaashada hataa tataaban karsan walaalihiina kala gaarsiinaysaan waa very important aad baan ku farxiraa ma jeclayn idinku iraahdo laakiin waxaan iska jeclayn inaan ii faa'iideeyo markay uu go-aan aan dib ugu soo laabto sababtoo ah aniga ayaa rabitaankaas heli kara wax yar baan idiin sheegayaa wax yar baan idiin tusaalaynaya waxaan rabaa inaan insoo qabto marka insoo qabto waxaan samaynayaa waraysi yar qof walba waraysanaya hadduu raalli ka yahay shaqs waan idiin soo qabanaya waxyaalahan ka waraysanayo waa wax aniga igu saabsan cid kale anigu inaan ka hadla ma rabo weligeena ma jeclaan qof bilaadan ka hadlo lowsinki ma waagan lowsinkiga aan ka hadli jiray bilaadan kale hadda anaa iska hadla haddaad aragto qof bilaadan ka sheekeynaya waa lowsinki barta cilmiga idiin sheegay mar haddaad aragto adoo bilaadan afka ka qaadayn lowsinki haddaad aragto adoo bilaadan kale u xumaanaya wuxuusan ku siin karin wuxuu kuu qoray isa jirin had eeg waxna kuma siin karo waxna kuma qorin adoo u xumaanaya haddaad aragtid u xanaaqaya u cadiifoonaya u kululaanaya u dagaalamaya haddaad aragtid lowsinki calaamadda ugu horeysa lowsinki in lagu garto in lowsinki tahay so iska giijida baasha la yirahdo waa lowsinki la-aan iga giiji wiilashiinu haweenkii bay isleeyihiin inaga giiji lowsinki haweenkiina waxay isleeyihiin ragga iska giijiya lowsinki every single qof kastoo idinkeeda ka mid ah hadduu dabcan bannaanka u baxo konton jeer buu muraayadda isku fiirinaya iskuma kalsoona wuxuu isku fiirinaya muraayadda bini'aadanka dad bannaanka jooga iska giiji lowsinki isagu intuu iscajabiyo oo isku farxo
oo iska helo bannaanka uma bixi karo asoo cid kale dan iyo helo kalahayn ma dhici karayso hadduusan sinkigiisu isahay ahayn so maxay ku tusaysaa markaad low sinki tahay maadada sinkiga la yidhahdo maada cajiiba wey maxay ku tusaysaa marka waxay ku tusaysaa maadadaanu waxay awooddeeda dhan haysaa nolosha jirkaaga khaasatan vitamin D-gaaga waa meesha ugu faraha badan oo ninka intiin ugu faraha badan aad dhacaysaan low vitamin D dadnimadaada hoos u dhacaysa marka maanta oo dhan wiil yaroo dhalinyaraayo wax bartay aan wiil yaroo dhalinyaraayo horumar gaaray ayaa daba socotaa ka sheekaynaysaa ayo wuxuu qaabtay yaa yiri wuu bartay adigu shakhsiyadaada ma wax barati adiga lagaa sheekeeyey low sink adigu dadku waa kaa sheekeeyaane ma wax baratid la soo baxday aqoontaada maskaxda ilaahay kugu rakibayo maasha allah ilaahay kuwa mana sheeganayo yawmal qiyaamah markaad hortaagantay maxaa qof kale waxbarashadiisa iyo hawlihiisa kugu mashquuli adigu wax baro ha lagaa sheekeeyo adiga ha lagu qaadqaado adigu wax tabco adigu iska sheekee buug qaar adiga kugu saabsan adigu iska hadal maanta oo dhan markaad low sinki tahay inaad adigu iska hadashid wax macnaa ay kuu samaynaysaa ma jirto sababtoo ah shakhsiga aan guul gaari karin baad qofku markuus guul gaari karana macno ma soo hoyiyo dadka kale guulahooda ayaa macno kuwa adiga dadka kale guulahooda ayaa kuu macnaa hadda tusaalahan haddaan idin siiyo meelaha platformyada waxaad ku arkaysaa kugu ka sheekaynaya ama ku doodaya wiilal ama rag iyagu ilmahoodii iyo danahoodii iyo maqaamku ma arkaysaa low sinki marka dhibaatada ay leedahay hagirdaamada ay geysanayso marka waxaad arkaysaa nin weyn oo nin kale maanta o dhan ka sheekeynaya ninkaa kale oo ka sheekeynayo waa nin xaasaskiisii meel wanaagsan geystay ilmihiisii meel wanaagsan geystay nolol wanaagsan ku jira isagu dantiisa u mashquulsan hawlihiisa qabsanaya asaga ka hadlaya ma ogeynba kan ka hadlayana xaaskiisiibuu soo dayaca ilmihiisiibuu dayaca naftiisiibuu dayaca waqtigiisiibuu dayaca waa calaamadaha sa'idka xanuunka ee sinki leedahay markaas low sinki tahay meel allaale meelaad waqtiga ku luminaysa meel allaale meelaad u jihaysan tahay wax allaale waxaad ku jihaysan tahay midna garanmaysa low sinki la'aantu faashil baad meel walba faashil baad ku tahay shaqadaada faashil baad ku tahay waxbarashadaada faashil baad ku tahay gogosha haweentaada faashil baad ku tahay ilmahaaga faashil baad ku tahay hobbigaaga faashil baad ku tahay wax walba maadada sinka la yiraahdo nin asaagiisa oo ilmihiisii geystay meel sare ayuu maanta o dhan ka sheekeynaya isagana xaaskiisii ilmihiisii meel cilaaga horya intaad nin kale ka sheekeynaya ilmihiisii meel foog geystay adigu maad xaaskaaga ilmahaaga ka sheekaysid oo wax u qabatid iyagaa ku horana kuu baahana waqtiga u baahane ma iyaga caawisi iyaga maad aragtid iyaga ma waqtiga gelisa ayaa xaq u leh
سنك الآن هداد أركتي توفيق الله وكتومرني that's why أنا إذن هذا بروح عن شركي إن كم مقن عبادتي إني نوي مقنانسة أنا هذا هذا كم مقنانسة هبين ده وضح داوني مساجد لقبوح مساجد هلك الله هيو لقبوح dadku wada khamiisyo iyo cimaamado iyo tusbaxyo wada haystaan salaada lagu jira marka يعني دكتور سمح يلا يدين شيء أنا ومساجد ضم إنه نيروبي كي لا مثلا بقول كبر 100% مساجد كاس كويس روح يعني كوي عركي إيه يعني كويس راح كويس كوي يعني ما لقى أقبله صادرت باينين شيء مركز لو أيرونتين حلس بكوتشر تسلادين أقبلات حلس بكوتشر صوبت صلاة خشوع بالله قبعي والذين هم لصلاتي خاشعون صلاة دوحة لو قبعي كوب أفكو دي والقدرة ساسولي صلاة بكوتشرة كواسن كيف ريريا كويني من مرمريا كل غنتي ساكويا ومساجد ضن افري سنجل غف كستا حالة قوني هايستا صلاة بنو كوتشرة إذن كل أستاذة أولى تكتان I know أنا وشيت كيكم حاجة marka maadaama aad dhaha is wada tihiin aad dhankii negativeka u qaadataan oo aad soo caytantaan oo dhibaatooyin samaystaan waxaas taa uma baahna idinku waad raadsan karaysaan laakiin waa idiin sheegaya xaqiiqo low iron markaa tahay ma daynaysid takar dhabasho hamaansi baxitaan fogaansho ilowsho adoo dhan waxaa tahay
qof maan salaad inaad tukataa rabtaa ilaahayna muxuu kugu yiri haddiina iska sixin haddiinaan ka waantoomin iska sixin aan hal qof idiin soo qabanaya see loo soo kala horreeyey iyo ii sheegi karaysa see loo soo kala horreeyey I don't know gabadhaana ugu soo horreysay iyada marka su'aalaha weydiin alxamdulilah dhakhtar waa fiicna soomaaliya jooga soomaaliya igala soo hadlaysaa maasha allah mawduuc ma la socotaa mawduuc ahaa adiga iyo salaada markaad tukanaysaan see isku tihiin ma takra dhawataa inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun kama hadli karo dhakhtar arrintaas see isku tihiin wallaahi tii cishoo dambayse waan dhakar dhawanaya ilaahu dambigeena dhaaf ilaahu dambigana dhaafta amiin faat maxaad uga bixi karaysaa dhibkaas waxa weeye waa inaad irontaada kor u qaadaa ironteeda inaan kor u qaado inaad irontaada kor u qaadidna xagee ka keenaysaa wallaahi barashadeeda inaan raadiyo waa in aad cuntooyinka ironta laga helo cuntaa oo cuntooyinka ironta laga helo maxay yihiin waa cuntooyinka inta ugu faraha badan borotiinka leh waa inaad borotiinka kor u qaadaa borotiinkaaga markaad kor u qaadid waxa weyn irontaaduna way kor buu kacaysaa laakiin intaad borotiinkaaga kor u qaadin calooshaada la rabaa marka hore inaad caawisid see ku caawinaysaa waa inaad hp-geeda balance ka dhigtaa oo see balance uga dhigi karaysaa waa adigoo cunto kasta ka hor caba galaas biyo ah oo aad lindhaan ku mirtay oo diiran mise caadi ah galaas biyo ah oo aad lindhaan ku mirtay adigoo aan qaboobeyn diiraana xigin ama diirada mise diiraana xigin laakiin markastaad cunto cunayso 30 daqiiqo ka hor waa inaad cabtaa galaas biyo lindhaan ku mirtay si calooshaadu hp-geedu balance u noqdo dan markaasaad cuni karaysaa wixii borotiin cuntooyinka borotiinka leh مصطفى السلام عليكم مصطفى وين جوجته
dadka salaadii inaa ka goosta aa ku sigtay oo gooni aa u tukada igu soo aadi